Asalaamu calaykum asxaabtayda waan islaamay meel kasta dunida ka joogtaan waxaan leeyahay waxay tahay wanaagsan maanta dhageystayaal waxaan hore ugu soo hadalnay waxyaabaha keena guusha qoyska wanaagsan ama furayaasha guusha qoyska wanaagsan ama sirta qoyska wanaagsan waxyaabaha aan hore ugu soo hadalnay waxaa ka mid ah in la yareeyo hadalka kiisa aan wanaagsaneyn runta iyo daacadnimada iyo hadalka naxariista leh waxaa sidoo kale halkan idinku soo gudbinayaa maanta qodobo kale oo aad u muhiim ah jiritaanka qoyska isla markaana dhameystiraya guusha qoyska wanaagsan waxaa ka mid ah guurku waa sir ilaasho waa maxay guurku waa sir oo micnaheeda loo dhahay ileen guurku wuxuu ahaa mid la wada ogaa oo waqti badan soo qaatay guurka intii noqday guur la wada ogyahay farxad iyo dhamaashaad badan loo sameeyay micnaha aan ula jeedo waxay tahay nolosha qoyskeena iyo waxyaabaha dhaca guurka waxay idin tahay sir aanan loo baahnayn in ay dhaafin albaabka guriga gaarin saaxiibadiin iyo qoyskiin iyo asxaabtiin waayo nolosha qoyskiina ma qusayso dad kale hadda camal arrin ayaad ka wada hadasheen ha ahaato mid mustaqbal ama mid markaas taagneed sida dhaqaalaha biilalka ama khilaaf idin dhexmaray waxaad ogaataa waxyaabaha ugu weyn oo burburka u keena qoysaska in ay tahay sirta qoyska oo gaarta qof saddexaad iska ilaali waxyaabaha ninkaagu kuu sheegay ama xaaskaaga in aad la wadaagto qof kale adigoo qofkaasi inuu yahay saaxiib kuu dhow wada fariiso oo ka wada hadla maalintiina siday u dhamaatay gaarin hadalkiin labadiin iyo nin qof saddexaad dhexdiina soo dhexgelin qof saddexaad dhexdiina maxaa la dhihi jiray war uu yuusan ka qaadin sidoo qoyskiina u burburin sidoo gurigiina u burburin sidoo maxaa la dhihi jiray cadow kala u yeelanin oo ka wada hadla maalintiina arrintan maahan mid bulshadeena u baahan tahay si ay qodobo aad u muhiim ah oo subaxii iyo loo wada kacay qof walba wuxuu aadayaa nolol maalmeedkeeda caadiga ah sida shaqada waxbarashada ama qof ayaaba guriga ku heray waxaa laga yaabaa sidoo kale caruurta in loo diray dugsiga ama iskoolka kadib waa la soo wada noqday ogow nolosha kalbar waxaa lagu soo qaatay banaanka aad wada fariisataan oo isweydiisaan lamaanahaaga wuxuu u qabsamay maalinta maxaa caqabad ayaa la soo kulmay haddii jiraan waxyaabaha dhibka ahaa noloshiisa ama maalintaas isku daytay rabbiisa dhibaatadaas adigoo adeegsanaya hadallo naxariis leh isla markaana u damqanaya uu naxaya micnaha waxaad tustaa dhanka wanaagsan caafimaad qabo taas ay tahay mahad alla u sugnaatay ayaa jirin dad xanuunsan tanoo kale u sheeg adduunka inuusan ahayn janno ay macquulta in wax walba lagala kulmi karo adigana aad tahay garabkiisa tan kale caruurta la fariiso ama la fariisto weydiiya dhanka iskoolka waxay soo sameeyeen soo sheegay idinkoo adeegsanaya luqadda caruurta taas oo ku sahlaysa wax walba in ay kuu sheegaan caruurta la saaxiib in xilliga aad wada hadlaysaan ma xilli la daalan yahay oo shaqada laga imaaday waa in ay tahay xilli jawi degan oo lagu jiro farxad iyo dhoola cadeen farxaddu waxay wanaajisaa dareenka labada isqab waxay ka wada noolaadaan nolol wanaagsan dareen micno leh iyo qancin haddaba qoyska wanaagsan sidoo ku heli karaa farxadaas waxaa lagu heli karaa siyaabo kala duwan marka hore raaligelinta Allah iscaawinta shaqada guriga nadaafadda sida tan guriga tan caruurta taada iyo tiisa intaba in aad wax isku hadiyeysaan waxay keentaa sidoo kale xadiidka rasuulka ayaa wuxuu ahaa micnaheeda ay tahay waxa isku hadiyay waad isku jeclaanaysaan marka waxaa hubaal markuu qof wax ku siiyo amaba ku hadiyay in ay keenayso farxad sidoo kale oo muhiim mararka qaar in aad banaanka aad waqti soo qaadataan ka duwan kan guriga barnaamijkeena wuxuu ahaa sirta qoyska wanaagsan waxaana kusoo gabagabeynayaa labo dardaaran oo ku socota labada isqabta midna gabadha midna wiilasha marka hore gabdhaha
Gabarey waxaa ogaataa inaad tahay tiirka dhex oo guriga, in aad badanaa adiga wax wanaajisa, in badanaa guriga dhisnaada marka uu ku dadaal in aad mar walba dhanka wanaagsan wax ka fiirisid. Tan kale wiilish waxaa ogaatiin alle inuu idin siiyey awood, taasoo ah masuuliyadda reerka in aad kala dirtaan mise isku haysaan waa awoodu alle nin siiyey. Amaalina awooddaasay si qaldan waxaa ogaataa mar walba furiinka inuusan ahayn xalka koowaad misna kan labaad. Ku dadaal reerka inuu dhisnaado, dulqaad badan lahaa xaaskaaga, caruurtaada, nolosha qoyska, waayo alla ayaa mas-uul kaaga dhigay. Haddiicin mas-uuliyaddaas. Santiin daawashada muuqaalkan asxaabey waxaa inaga codsanayaa subscribe-tii aana laga baqiilin, like-tana sidoo kale share-tan waa inoo muhiim in asxaabtiina la sii wadaaga. Wixii fariina dhinaca kommentiga nooga reeba. Waxaa inagiiga tagayaa sidaas iyo fi amaanillah. Kulan dambo xiiso leh.